بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون صدق الله العظيم صدق رسول النبي anagoo qalbi khaalisa ku soo dhaweynayna haddii aanu nahay ama jacliyada ama odayaasha ama dhammaanba iswiidhan waxaanu waftiida ahaan ku soo dhaweynayna madaxda maanta noo tagay magaca Somaliland iyo sharafta aasidan ee Somaliland intaa kadib waxaa laga yaabaa halkan deegaanka inta ugu weyn waxaan ahay dubka ugu weynaa dhalinyaradiina halkaa soo fadhida dhammaantiin in badan baa halkaa intay u salaameen war kumaad ahayd aanin oo igu yidhi ina hebel markaasaan gartay waalidkii magacii labaad ama kii saddexaad baan ugu daray anigu markaa waxay keenay goobtan kalgacal aan u hayo waddanka iyo dhalinyarada inaan ku dhiirigeliyo inay iskaashadaan oo isu yimaadaan oo wax wada qabsadaan intaasaa horta ay keentay waxaa laga yaabaa dalka waxaanu soo bilaabay 75 baan maxkamadaha ka bilaabay shaqada dibadna waxaan imi jaamacadda Qaahira waan ka baxay waan ku noqday oo maxkamadda dalka ilaa 5 sanadood oo intii ay soo galnay maxkamadda gobolka Hargeysa ka shaqeynay marka waxaan ugu yimid iminka aan jecelahay oo dhalinyarada yararkaygii inta kusoo gobaabiye halkan inay yimaadaan ayaan soo kaxeeyey waxaan halkan iyadan cidiba joogin hadalna ka taagnaa waxaan leeyahay marka munaasabadaha caynka la imanayo ee ay dalkeennii iyo waqtigeennii ay tahay dhalinyaro idinkaa leh ayaamahan ayaamihiina waa inay idinka muuqataa farxadda iyo waxqabashada iyo iskaashiyada iyo idinkoo dadaal muujinaya intaas ayaan idinku dhiirigelinayaa wasiiradan waxaan leeyahay iyo madaxda ku soo dhawaada magaaladan iswiidhan ama waddankan iswiidhan ee aanu idinku soo dhaweyn doono insha allah waddankiina waynu isugu imaan wixii khaladaadahay jira xaggaana de ilaahay baa soo rogay khaladkii saxaba haddii cid khalad ka dhaco waa in sax lagu baadi doontagaa ayaan leeyahay laakiin haddii la yidhaahdo khalad baa dhacay khalad ku saxa waxba ma noqonayne aan isku dayno haddii la tuhmo in cid khalad ka dhacday in sax lagu baadi doono ee aan khalad lagu sixin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu